booliska dalka Hindiya ayaa xabsiga u taxaabay 5 qof kadib markii arday lagu weeraray hotel jaamacadeed oo ay ku tukanayeen salaada taraawiixda. Saraakiisha ayaa sheegay in muran xoogan oo ku saabsan goobta lagu tukanayay salaada uu sababay weerar jireed oo ka dhacay jaamacadda Gujarat ee gobolka Hindiya. Ilaha booliska ayaa sheegay in 5 arday laga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray weerarkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa sheegtay in xukuumadda Gujarat ay qaadayso tallaabo adag oo ka dhan ah dambiilayaasha. Maalig oo ah taliyaha booliska ee magaalada Ahmedabad ayaa saxaafadda u sheegay in ku dhawaad 20 ay galeen hotelka habeenkii Sabtida ahayd ayna ka soo horjeesteen in ardayda ay ku tukadaan masjidka. Arrintaas ayay ku murmeen gacan qaad iyo dhagax tuur ayaa ka dhacay. Sidoo kale waxay burburiyeen qolalkii ay ku noolaayeen ardayda, ayuu yidhi, isagoo intaas ku daray inay sameeyeen kooxo soo baara kiiska. Sargaal ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Tarun Dugal ayaa BBC-da Gujarat u sheegay in magacyada 5 nin ee la xiray ay kala yihiin Hitesh, Mawada, Bharat, Patel iyo Shati iyo Banje, Jantarde, Patel iyo Sunil. Ma aysan sheegin wax wara oo ay si cad u qirteen intii ay ku jireen gacanta booliska. Waxa uu intaa ku daray in laga yaabo in dad badan la xidho dhawaana. Booliska ma aysan xaqiijin in ragga weerarka soo qaaday ay ku xidhan yihiin ururo siyaasadeed ama kuwa diimeeda. Wariyaal ka tirsan BBC-da Gujarat oo goobta booqday ayaa sheegay inay arkeen dhagaxaan iyo gawaari jajabay oo yaala goobta. Muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay koox kor u qaadaysa halku-dhigyo diini ah oo Hinduuga oo weeraray ardayda isla markaana burburiyey baabuur iyo dhagaxaana. 3 ka mid ah ardaydii dhaawacantay ayaa laga soo saaray isbitaalka, halka 2 kalena ay xaaladoodu soo hagaagayso. Navida oo ah arday u dhashay dalka Afghanistan oo weerarkaas ku dhaawacmay ayaa wargeyska Time of India u sheegay in isaga iyo arday kale ay tukanayeen taraawiixda ee la tukado bisha Ramadaan, markaasoo ay u soo galeen 3 ruux kadibna ay bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan. Muran baa ka dhashay, waxaan isla soo noqdeen dad tiro badan oo ku hubaysan dhagaxaan iyo tuubooyin bir ah, wayna soo weerareen. Waxay weerar ku qaadeen hotelka iyagoo ardayda qolalkooda ku weeraray oo gudaha u galay, hanti iyo gaadiid khasaare badan u geystay ayay jajabiyeen, ayuu wargeyska u sheegay. Noomaan oo ah arday kale oo ka soo jeeda Afghanistan ayaa isla BBC-da Gujarat u sheegay in shilalkan oo kale ay hore u dhaceen. Halkan waxaa jirta khataro badan oo ku wajahan ardayda dalalka kale, ayuu ku dhawaajiyey. Booliska ayaa sheegay in ku dhawaad 300 oo arday oo ajaanib ah oo badankoodu ay ka kala yimaadeen Afghanistan, Sri Lanka iyo wadamada Afrikaanka ay wax ka bartaan jaamacadda. Wararka ayaa sheegay in ardayda dhaawacantay ay ku sugan yihiin dalka Hindiya kadib markii ay deeqo waxbarasho ka heleen golaha dhaqanka Hindiya ee ay taageerto dowladda federaalka. BBC-da ayaa fariin u dirtay madaxa jaamacadda si ay uga warbixiyaan dhacdadii. Dr. Nachrat Gupta oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Gujarat ayaa warfideenada u sheegay dhamaadka toddobaadkan inay in muddo ahba jirtay xiisad u dhaxaysa ardayda ajaanibta iyo kooxda weerarka soo qaaday. Dr. Gupta ayaa sheegtay in ardayda ajaanibiga ah loo wareejin doono hoteello cusub oo leh ammaan iyo taxadar wanaagsana. Ma aha markii ugu horreysay oo xiisad ay ka dhalato dadka muslimiinta ah ee ku tukanaya dalka Hindiya iyo kooxaha kale. Sanadkii 2021 muslimiinta salaada ku bixinayay meelaha caadiga ayaa waxay la kulmeen jariinado joogto ah iyo mudaharaadyo kaga imanaya xubno ka tirsan kooxaha mayalka adag ee Hinduuga. Horaantii bishan, nin boolis ah oo ku sugan Delhi ayaa shaqada laga joojiyey kadib markii kaamirada ay qabatay isagoo laad ku garaacaya niman muslimiin ah oo salaada ku tukanaya wadada dhinaceeda.